Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka tacsiiyay geeridii ku timid Allah u naxariistay taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jenaraal Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Madaxweynaha oo tacsi tiiraanyale u diray qoyska, qaraabada iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuumka ayaa tilmaamay inuu muddo dheer u soo adeegay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed isaga oo kaalin mug leh ka soo qaatay aasaaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Waxa uuna yiri madaxweynuhu: Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Geerida ku timid Allah u naxariistay Jenaraal Ismaaciil Axmed Ismaaciil waa mid murugo badan. Marxuumku waxa uu soo adeegay qarannimada Soomaaliyeed muddo dheer, waxa uuna qayb ka ahaa qorshihii aasaaska ciidanka asluubta. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Alle uga baryay marxuumka inuu hoygiisa ka yeelo Jannatul Firdaws, samir iyo iimaan uu ka siiyo qoyska, ehelka, shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ee uu ka baxay.